الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة على النبي أكرم مبعوث بخير في أفضل الأمم، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى sidaynu ku ballansanayn toddobaadkan waxaan soo qaadanaa buuggeennii 23aad ee barnaamijkeennii aynu ugu magac darnay nuxurka buugaagta. barnaamijkaas aynu ugu talagalnay had iyo goor buugaagta aynu isleenahay si un bay nolosheenna wax ugu tarayaan, hadday noqoto dheega nafteenna iyo hadday noqoto dheega taariikhda iyo hadday noqoto dheega diini ahaan iyo maadi ahaanba labadaba. buugga aynu toddobaadkan soo qaadan doono waxaa loo yaqaanaa siirata abubakr asidiiq radiallahu tacaala canhu, oo uu qoray doctor liibiyaan ah oo loo yaqaano cali maxamed assalaabi. doctor cali maxamed assalaabi wuxuu leeyahay kutub fara badan oo ka hadlaysa taariikhda, siiba wuxuu aad wax uga qoray taariikhda khulafaa raashidiinta oo cumarna uu ka qoray, cuthmaanna uu ka qoray, calina uu ka qoray, xasanna uu ka qoray. sidoo kale taariikhda islaamka wax badan buu wax ka qoray, dowla alfaatimiya waxbuu ka qoray ama dowla alcaabidiya, sidoo kale dowla alumawiya waxbuu ka qoray. kitaab kaloo fiican oo kitaab kaga warramayo alxuriya fi mafhuumi kitaabi wasunna isna uu qoray. aduu kutub fara badan buu qoray. toddobaadkan kutubka aynu qaadanayno waxaa laga qoray sayidina abubakr asidiiq oo ahaa khaliifkii koowaad ee muslimiintu yeelato. waxaan leeyahay abubakr sidiiq oo ahaa khaliifkii koowaad ee muslimiintu yeelato. abubakr sidiiq markaa kutub fara badan baa laga qoray. kutubta abubakr sidiiq laga qoray faraha badan leh, waa maxay sababta aynu u dooranay kitaabkan sababta aynu u dooranay waxa weeyaan dhowr qodob ah. kow, horta sugnaanshaha oo kitaabku wuxuu ku dadaalayaa, kaatibka iyo qoraagu iyo mu'alifku wuxuu ku dadaalayaa inuu taariikhda abubakr intii sugnayd inuu soo qaato, wixii kale aan sugnayn inuu iskaga tago, kala huufo, kala haadiyo. daa'imanna cali maxamed assalaabi wuxuu ku dadaalaa taariikhda wixii sugan inuu soo noqliyo oo soo guuriyo. waxyaabaha kale aan ku doortay waxaa ka mid ah qaab qoraalkiisa oo ah qaab qoraal fiican oo sidii raaqib sarjaani oo kale buu qaab qoraalkiisu u eeg yahay. kutubka wuxuu qaybinayaa mabaaxith, wuxuu qaybinayaa cutubyo, kadib cutubka wuxuu sii hoosgelinayaa mabaaxith iyo ciwaan hoosaado yar oo ku qaydan oo ku xayndaaban cutubkaas wuxuu ka warramaya, laakiin si research ahaan oo kale ayaa marba dacal u baarayo oo dacal uga warramayo qayb uga warramayo. waxyaabaha kale aan ku doortay waxaa ka mid ah inuu ehel u yahay fannigan oo saan hore ku soo sheegay intaan bilaabin kutubka. wuxuu qoray buugaag fara badan oo khulafaa raashidiinta uu ka qoray, hadday tahay cumar iyo hadday tahay cuthmaan iyo hadday tahay xasan ibn cali iyo cali laftarkiisaba, iyo kutub kaloo taariikhiya. marka inuu fannigan ehel u yahay na waan ku doortay. waxyaabaha kale aan ku doortay waxaa ka mid ah inuu fudud yahay. waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah kitaabka luqadda carabiga marka hore lagu qoray, markii dambena waxaa loo turjumay luqadda ingiliishta. marka haddii uu kugu adkaado xitaa luqadda carabidu oo ay kugu adag tahay, waxaad akhri kartaa isagoo ingiliisha. waxaa daamacday waxaan u malaynayaa madbuucaddan Islamic Publishing House loo yaqaano baa daabacday, isagoo mujallad dakhmi oo yar weyn oo laakiin mujallad aad u qurux badan oo aad u fiican ah. waxaan idiin dhigi doonaa description-kaan idiin dhigi doonaa, sawirkana uu idinka soo muuqan doonaa insha allahu tacaala. waxyaabaha kale aan ku doortay waxaa ka mid ah insha allahu tacaala waxaan jecelahay inaan idinla wadaago kutubtiisa dhowr ka mid ah, sida kutubka cumar laga qoray iyo ka cuthmaan iyo ka cali iyo ka xasan. haddii ilaahay subxaana watacaala intaa aynu noqlaysiyo aanu sii wada noolaano oo aynu sii wada joogno adduunka. kutubku wuxuu ka kooban yahay ilaa 4 cutub oo laakiin 4 cutub ay cutub walba ku hoos jiraan ilaa 5 mabxath oo iyaga qudhooda cutub iska noqon karaya. halkii uu ka odhan lahaa baab buu yiri fasal, deetana fasalkii wuxuu soo hoosgelinayaa mabaaxith ilaa 5 mabxath fasalka koowaad oo kale kaga warramaya oo uu ku kala qaybinayo cutubkaas. cutubka koowaad markaa wuxuu kaga warramayaa abubakar iyo xilligiisii uu Maka ku noolaa. abubakar Maka intii uu ku noolaa iyo taariikhda abubakar uu kaga warramaya. waxaa kaloo kaga warramayaa geeridii nabiga calayhi salaatu wasalaam cutubka labaad iyo ku wareejintii lagu wareejiyay khilaafada abubakar sidiiq. waxaa kaloo uu ka warramayaa cutubka saddexaad kaga warramayaa dictoorku jeyshu Usaama iyo
sida qaabkii uu la tacaamulay ula dagaalamay dadkii diinta ka ridooway iyo dadkii sakada diiday waynu ognahay waqtiga Abubakar markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas buu dhintayba dad badan baa diintii ka laabtay oo ridooway dad badan waxay sheegteen nebiyo oo Musaylimatul Kadaab iyo kuwii la midka ahaa nebiyay sheegteen qaar badan oo kamid ah waxay yiraahdeen sakadii bixin mayno marka dadkii noocaas qaabku la dagaalamay Usaama iyo jeyshkiisii ciidankii Usaama ay kaga warramaya cutubka ugu dambeeya afraad wuxuu kaga warramayaa diktoorku wuxuu kaga warramayaa furitaanadii iyo furashooyinkii Abubakar Sidiiq waqtigii ay haystay labada sanaha intee wadan buu furtay intee dawladood buu furtay soo kale wuxuu kaga warramayaa sidoo Umar bin Khattab khilaafada ugu wareejiyay qaabkii uu khilaafada Umar ugu wareejiyay kaga warramay cutubka ugu dambeeya insha Allah taala marka sidii caadadeena ahayd waxaynu ka warrami doonaa tilmaamaan ka bixin doonaa tilmaamo yar oo kooban oo aan fara badnayn ka bixin doonaa batal cutubka kale waxaan ka soo qaadanaynaa laba qaybood wuxuu kaga warramayaa qaybtu kaga warramaya Abubakar iyo qaabkuu ku islaamay iyo qaybta labaad ee kaga warramayo shan qaybood oo qaybinaya cutubka koowaad qaybta labaad ee ka soo qaadayna waxa weeyaan Abubakar iyo sifooyinkiisa wax kamid ah sifooyin badan buu soo naqliyay laakiin wax kamid ah markuu ka warramay Abubakar qaabkuu islaamay xoolahay Abubakar fil jaahiliya iyo fil islaam ba nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa saaxiibkiisa koowaad marka Abubakar Sidiiq markii Makka uu ku sugnaa xilligii jaahiliyada wuxuu ahaa mid xaq raadiya oo soo naqlay qiso ah isagoo intuu Kacbada fadhiyo nin Nasraani soo marayo oo ka oranaya Abubakar wixii aad raadinaysaa meesha soo dhalay Abubakar may wali mehel ma soo gabay tirnaya ninkii Nasraaniga ahaa Abubakar marka saas isagoo xaaladda noocaas ku jira ayaa nabiga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Quraysh u soo diraya oo adduunka u soo diraya oo diinta u waxyoonaya Qurayshna uu ka soo dhex saareeyay Makka kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam Abubakar buu diinta ugu yeedhay Abubakar horu ka qaadanaya markiiba waa aqbalaya saasuu markaa Abubakar ku islaamaya saasuu dad badan ku islaaminaya asxaabta badankooda bal waxay cunadu sheegaan asharatul mubashirin fil janna badankooda Abubakar bay gacantiisa ku islaameen qaabkaas markaa diinta Abubakar ku qaatay in nabiga calayhi salaatu wasalaam diinta u soo bandhigay markii horena isagoo xaq raadinayo oo aan sanamadan iyo mushrikiinbadan aan ku qanacsanayn qaybta labaad ee ka warramayna sifooyinkiisa waxaan soo qaadanaynaa dhowr sifo oo nolosheenan maanta aynu aad ugu baahannahay inaan tilmaamaha noocaas oo kala Abubakar Sidiiq kaga dayano waxa kamid ah intaana markaa tilmaamaha u gudbin waxaan ka horeysiinayaa hal qiso oo aad iyo aad muhiim u ah halka qiso waxa weeyaan qisadii dhex martay Abubakar Sidiiq iyo Ibn Daqina Abubakar Sidiiq diinta in badan baa lagu dhibay isagoo waliba ogaaskii oo Quraysh iyo Makka dhexdeeda magac ku leh oo nin ganacsada ah oo magac ku leh oo la tixgeliyo oo ku sifooway run iyo daacadnimo ku sifooway oo de wax kasta oo nin wanaagsan ku sifooway ayaa haddana Quraysh markii uu diinta qaatay ee islaamka ay kala mabda duwanaadeen ay haddana dhibeen oo ay haday caayaan maray aflagaadeen maray garaacaan wax allaale waxay doonaan bay ku sameeyeen kadib Abubakar wuxuu damcayaa in uu Makka intuu ka hijroodo dhulka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xagga ya ardul Habash aado markuu marayo meesha loo yaqaano Barkul Ghimaad markuu marayo ayaa waxa ka hor imanay ninkii loo yaqaanay Ibn Daqina oo ahaa Sayyidul Qaara qaryadaas iyo tuuladaas ugaaskoodii ahaa Abubakar xagad ku socotaa soo leen waxaan ku socdaa meelan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku caabudo arlada Ilaahay baan meel kamid tagaya qoomkayga way soo saaray tolkayga soo saaray marka dhulka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fidiyay baan doonay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku caabudo Ibn Daqina marka wuxuu ugu jawaabayaa ma adigoo kala ku lama saaro isna ma baxaba adigoo kala dadku ka dhashay mana saaran isna ma baxo ila maranaad raacaysan magantayda tahay oo israaceen gacantu qabtay makay wada tageen maka markuu tago markaa faafiyo sheegay in uu magantiisa inuu Abubakar ku jiro maganta Ibn Daqina qinaani taabayn
quraysh iyo carabna beriga maganta de waxay ka taagneed meel weyn ma aha adduunkan imka qiimo beelay laakiin magantu waxay ahayd shay aad iyo aad u weyn oo la qiimeeyo xitaa dumarka qaar markay dumarku ay magan geliyaan dadka waa la magan geli jiray waxaa qisadii fatxu maka kadib abubakar wuxuu bilaabaya inuu salaadiisii si isaga cibaadaysto oo aad buu cod malanaa aad buu cod wanaagsanaa quraanka intuu la soo salaada intuu soo istaago wuxuu istaagi jiray kacbada agteeda quraanka akhri jiray dadana waxa ku soo ururi jiray dumarka iyo carruurta dadana quraysh waxay ka cabsatay in dumarkoodii iyo carruurtooda ay diinta islaamka qaataan oo markaa diintii ay haysteen iyo sanamadii ay ka tagaan kadib ibn daqina markaa u tagayaan oo dhan ibn daqina lama hal kale dooro in aad abubakar magantaadii uu ku soo celiyo iyo inuu wuxuu wada joojiyo ibn daqina markaa intii in la mid ku odhanaya abubakar ku odhanaya maganta ilaahay baan raali ku ahay iska noqo magantaada la noqo sidoo markaa abubakar sidoo abubakar halkii ku joogay ama ka ilaayo nabiga kaleey salaatu salaam la hijroodo waxaan uga socdaa markaa inta uga socdo waxa weeyaan markii uu barkul qimaad ibn daqina kula kulmay rayu kuuri ibn daqina abubakar markuu adigoo kala lamana saaro mana baxo dhowr eray buu ku yiri wuxuu ku yiri sababtoo ah waxaan lagu saarin adnaanad u baxay qofka masaakiinta caawiyo waa adiga hadday noqoto inaad shaqo abuur samaysid iyo hadday noqoto inaad saad u caawisid waa mar labaadee waxaad xiriirisaa watasilu raximkana waad xiriirisaa waa mar saddexaadka وتقرئ الضيف مرتدنا وصورته صدح راسي فان كسو قادنينا يعني ابن الدقينة wuxuu ku yiri erayadii ay Khadiija zawju nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ku tiri nabiga alayhi salatu wasallam markii loo waxyooday yani waxa ku tusaysa Abu Bakar iyo nabiga alayhi salatu wasallam say sifooyinka isaga shabah ay isugu eekaayeen nabiga Abu Bakar Siddiq waxa uu jili jiray nabiga alayhi salatu wasallam oo isu eekaysiin jiray oo xitaa markuu khaliifta noqday talaabo kasto nabigu qaaday wuxuu rabay inuu isna qaado oo ku daydo sifooyinka uu Abu Bakar ku socnaa waxa kamid ah iimaan xoogan oo iimaan qawiye u lahaa culimadu hatta ay yiraahdaan bacdu salaf ay yiraahdaan Abu Bakar idinkaga mu horumarin inuu iska salaad badnaa inuu idinka soom badnaa inuu idinka saka badnaa inuu idinka sadaqa badnaa laakiin wuxuu idinka horumaray oo mansilada iyo booska uu islaamka ka taagan yahay uu ku gaaray bishay'in waqara fi sadrihi aw fi qalbi shay laabtiisa iyo qalbigiisa buuxiyo degay oo shaygaas waxay waa iimaanka dii idan qofka haduu iimaankiisu xoog bato wax kasto jeedi karaya yani marka wuxuu leeyahay I think inuu taabici ahaa wuxuu leeyahay shay idinka Abu Bakar kuma horumarin oo salaad iyo soon iyo sakee wuxuu ku horumaray oo uu ku gaaray bensilada iyo booska iyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku xusootaaniyo tiniidahuma fil qari idh yaqulu li saahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana wuxuu ku gaaray darajada iyo booskaas inuu idinka iimaan badnaa waa iimaan badnaa markaas sifaysa koowaad sifooyin kale oo fara badan buu leeyahay laakiin waxaan ka soo qaadanaa tusaalahan kale inuu ha xalaal miirad hal qisaneedan ka soo qaadanaa runtiina ay tahay mas'ala ay u baahannahay maanta oo baahi u qabno Abu Bakar Siddiq wuxuu lahaa qulaan buu lahaa adoon buu lahaa adoonkii markaas wixii uu diri jiray uu soo shaqeey jiray wuxuu soo shaqeeyo wuxuu keeni jiray sidii caadada ahayd bariga adoomaha la haysan jiray sayidkiisu keeni jiray marka sayidkiisa badna siin jiray badna isaga qaadan jiray kadib Abu Bakar ninkii markuu soo shaqeeyay subax kasta markuu soo shaqeeyay markaas su'aal buu weydiin jiray xoolahan xagaad ka keentay ila maalinta qiyaame Ilaahay subhanahu wa ta'ala adimadaada ku hor dhaqaaqi maayaan illa lagu weydiiyo su'aalaha afar su'aalood waxa kamid ah xoolaha heshay xagaad ka shaqeysatay markaad shaqeysan xagaad ku bixisa lagu weydiinaya su'aashaas weydiin jiray isagoo ku dhaqmaya marka xadiiskaas su'aasha markuu weydiiyay dhowr jeer su'aalaha markuu weydiiyay maalintii dambe buu soo shaqeeyay etana cuntuu keenay Abu Bakar cuntadii iska cunay su'aashii weydiin markaa inuu ilaawiyo wax Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala xikmad ka waday
kadib baa Abubakar inankii baa qulaamkii baa ku odhanaya addoonkii baa ku odhanaya miyaad maanta imaad weydiin xoolaha xaggan ka keenay xoolahan aan kuu keenay cunto aan kuu keenay imaad weydiin suur xaggaad ka keentay suur berigii horaan kuhaanada iyo yaqaanay xidiginta deetana waa soo xidigiyey nin baa wuxuu weydiiyey waan u xidigiyey cuntadaas ii soo siiyey cuntadan waad iga cunay Abubakar Sidiiq halkiisa uga taagan buu afka gacanta geliyey ilaa calooshiisa wixii ku jiray ay ka dhamaadaan ana waxa ku tusaysaa sidoo xalaal miradka u ahaa ilaa waxa laga yaabaa maanta inay midkeen rabbigeen bariyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala gacmaha hoos dhigto isagoo asbaabihii ducada lagu aqbali jiro dhan la yimid laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala waa tayyib wala yaqbalu ilaahay subhanahu wa ta'ala ma aqbal illa tayyiba wax wanaagsan ma ahaan inna allaha tayyibun ilaahay subhanahu wa ta'ala waa wanaag badan wax wanaaga wax aan hayna ma aqbalo marka intaad caloosha intaad xaraan cuntay xaraan ku labisatay xaraan kugu hareeraysan tahay hadana ilaahay subhanahu wa ta'ala taadi ilaahay ajiib ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu laki aniga ajiiba wal yu'minu bi la'allahum yarshudun يعني رماية إلهي سبحانه وتعالى ويأجيب مركز أجيتان شرعية ku toosnaataan ana markaa waxaan dii ballan qaadayaa inaan ducooyinkiina iyo alla baryadiina inaan aqbalo waxyaaba kale ka soo qaadan kareen wax kamid sifooyinkiisa inuu xanta iyo qiibada aad Abubakar uga carari jiray hal yadan hal qisan ka soo qaadanayna waa qisada dhex martay Rabiicat al-Aslam iyo Abubakar Sidiiq nabi alayhi salaatu wasalaam markii muslimiinta loo adduunka loo furay qaniimooyin farbaday yimaadeen dhul badan ay heleen Abubakar Sidiiq nabi alayhi salaatu wasalaam dhul buu siiyay Rabiican dhul buu siiyay marka labadii dhul baa jaar noqday oo isku dhawaadeen waxa u dhaxaysa marka geed timireed baa u dhaxeeya geedka timireedkaas ay ku murmeen oo Abubakar wuxuu beertayda ka mid tahay Rabiican wuxuu beertayda ka mid tahay qaybtayda ka mid tahay هذا الله marka dhaxmaray hadal hadii la isdhaafsadana kulli xurguf ay maraysa Abubakar baa eray marka ku yiri eraygi uu karaahiyay eray adag buu ku yiri eraygi uu karaahiyay kadib baa Abubakar baa xoranaya kelmadda aad ugu tiri wadiga qasaasansan yani wadiga oranaysa mid lamid ah aniga igu oranaysa Rabiica marka oranay may ku oranayo way israacayaan xoranaya hadaba waayahay hadii aanad iga qisaasan nabiga ka ashkateeniya wallahi hadana diga qisaasan kelmadda nabiga ka ashkateeniya gacantu soo qabtay way soo nabiga u tageen marka inta ay nabiga u tagin ayaa qolada dadka qola iska jirta kulliba mid wax kugu dhiiri gelisay dad marka dhageysanayo asxaabaha oo beerta ku sugnaaya yiri Abubakar maxaa ku dhacay raximahullah ma intuu kelmadii kugu yiri adkeyd kugu yiri hadana nabiga alayhi salaatu wasalaam ka ashkateynaya yani wax yar qariibsan waxa moodayay inay isagu uga hiiliyaan kadib oranaya Rabiica hadalla ajiib ku oranaya oo ka oranaya ma Abubakar yaanu arkin boo oranaya inaad iga hiilinsaan dareemi Abubakar inaad iga hiilinsaan yaanu dareemi ninkan waa ugaaskii waa haldoortii waa mudankii asxaabta iyo ummadda muslimiinta haddaan ka caraysiyo nabiga caroonaya hadduu nabiga iyo isagu wada caroon Ilaahay subhanahu wa ta'ala caroonaya sidaas daraadeed mid waxa jeceshiin inuu Rabiica halaagsamo iska noqonaya deetana halkii nabigu wada tagayaan nabiga hor imanayaan markaas nabiga alayhi salaatu wasalaam weydiinaya oo maxaa idin dhaxmaray markaasuu Rabiica hadlaya qisadii uga sheekeynaya leeyahay dhacday saysaasi ugu yiri deetana wuxuu yiri goosan waxa ka goosan maayo si wanaagsan baa sameeyay wada siibtay laakiin waxaad ku taada ghafar Allahu laka ya Abubakar intuu marka ku oranaya Abubakar marka ilmadii uu cushin kari waayay Allahu akbar qisadaas waxyaabo fara badan baa laga faa'iideeyay waxa kamid ah cali tirinayo waxa kamid ah sida uu Abubakar uga carariyay xanta iyo liibada waxyaabo kale aan anu ka kororsanayo waxa kamid ah idinkuna aad ila dareemeysaan qaabkay Abubakar Sidiiq asxaabada iyo dadka ay isku qarniga hayeen u weyneen jireen ay ula dhaqmi jireen u fiirso waa laba asxaabi oo nabiga alayhi salaatu wasalaam wada gaaray haddana nabiga isku meel ma joogaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku meel ma joogaan inta uu ka mudnaayo diinta kaga soo horeeyay diinta uga gargaariyay uu ka weynaaye uu magaranaysa nabiga alayhi salaatu wasalaam saaxiibkii ahaa ayuu ku ixtiraamay oo uu lahaa ninkan waa sayidkii ugaaskii haldoorka ummadda muslimiinta ah inagana waxa laga yaabaa
1400 oo qarni ka bacdi dad inugu dhex nool inay leeyihiin Abubakar khiyaano lahaa khilaafadii uu marorsaday qaar ay gaarsiiyaan hay yiraahdaan islaamiyadiisa ay ka shakiyaanba xadiistiisa ay tuuraan khilaafadiisa ay diidaan waxyaabo fara badan asaadiir iyo abaadiil fara badan ay sheegaan marka fa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun asxaabtii baba saa u qiimeeynayay Abubakar Sidiiq adigoo 1400 sano ka bacdi noolaa oo sakaraadaho yaaban maxaad Abubakar kaga taagaysaa haddii aad Abubakar weerartay waxaad la mid tahay adoo nabigii weeraray way nabiga saaxiibkii buu ahaa Abubakar Sidiiq wuxuu hogga kii la galay wuxuu lahaa kii la soo hijrooday wuxuu ahaa kii diinta rafaad walba ula soo maray wuxuu ahaa kii mar walba dagaal walba nabiga calayhi salaatu wasalaam gaadhkii heeganka ka ahaa marka maxaa doon waxyaabaha kale laga faa'iideysanayo waxa kamid ah waxyaabaha kale sifooyin kale Abubakar leeyahay aynu ka barayno waxa kamid ah inuu ahaa mid sidaan hadda idin soo sheegay masaakiinta iyo martisoor fara badan waxa la sheegaa Abubakar Sidiiq waa qisada caanka ah taqaana qisatu Tabuk wad garanaysaan dagaalkii Tabuk iyo sidoo qayb lixaad uga ahaa tartankii isaga iyo Umar ka dhaxeeyay Umar yiri maanta kadib kula tartamayadana wad garanaysaan cutubka labaad labada cutub kale wuxuu kaga warramayaa sida cutubka kale wuxuu kaga warramayaa qaabkii Abubakar khaliifka ku noqday oo iyadana qisooyin cajiib oo soo noqlinayo iyo hadalkii uu ka jeediyay ansaar uu jeediyay Umar lahaa waxaan isku hagaajistay kelmado inaan hadlo markii ansaar u tageen Saad ibn Ubaadi iyo kooxdiisa markay u tageen saqiifadii markay ugu tageen wuxuu Umar baa xoranayo waxaan isku hagaajistay hadal saan ansaar uga hor idhaahdo hadal yar qurux badan oo cajiib ah Abubakar baa iga hor hadlay waxaan markaa hadal Abubakar baa igu fadhiiso wuxuu leeyahay Abubakar kelmad maan qorshaysan inaan ku hadlo wanaagsan ilaa ya Abubakar waa yiri ilaa iska daaya bal wuxuu yiri mid ka fadli badan oo ka wanaagsan oo ka qurux badan buu yiri يعني إلهي سبحانه وتعالى وحسيه سيد النبي عليه الصلاة والسلام وسيه جوامع الكلم أي أبو بكر وحسيه كلمة لا يقال جوامع الكلم وكلمة يراقبا لكن حكمة فربضا حنبارسا وحوها دي واضحة سلطان موقف كي النبي عليه الصلاة والسلام مركب دينتي إيا إنه عمر سيف انتو قاتل والله من كيرا النبي محمد بعد دينتي كل كيسو أرقاسو يالله أبو بكر الصديق وكسوق لي مدح النبي كان عليه الصلاة والسلام كدب أرانا يا وردي عنك هاي قفك النبي محمد عاود جل النبي محمد قد مات قفك إلهي سبحانه وتعالى عاود جل إن الله حي إن الله حي إلهي سبحانه وتعالى وحي ونولي هاي وأنا باقي ولجنا وأنا ولجنا وشرية وشوية كتبنا آية في سورة عمران أخرية ومن ينقلب على عقبيه إلى آخر آية في سورة العمران كترتي أخرية kadib Abubakar waa ka Umar oranaya waxaad moodaa aayadaasi in ay maanta soo degto ee qoyintayba yani kaana waa inaan maqalba oo ka jibaadka ku dhufanaya yani waxaan uga socdaa jawaamicul kalim baa la siiyay khaliifadana wuxuu ku noqday Abubakar qaabku ku noqday khaliifadana waxa weeyaan in uu asxaabtii gabi ahaantoodba ay la mubaayacoodeen ay la baayactameen ilaa ansaar iyo muhaajiriinba labadii qole asxaabta ee ansaar iyo muhaajiriin kala oran jiray dhanba inay la baayactameen cutubka ugu dambeeya wuxuu kaga warramayaa isna wuxuu kaga laba cutub ugu dambeeya furashadii Abubakar iyo Jaysh Usama matalan tilmaamtaan ku siin karay waxa Jaysh Usama markuu ka warrami karaya wuxuu markuu Jaysh Usama waxa dhalay Zayd bin Haritha waa ninka kaliya nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa leeyahay waa ninka kaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka magaciisa ku xusay falama qada Zayd minha wadara zawajnakaha Zayd marka Usama waxa dhalay marka Zayd qisaysa marka waqtiga ugu kooban ma doonayeen galo way jirto waxay sii soconayaan bay dhowr iyo 20 miran buugaad marka ugu noqdo qisada marka uu soo noqliyo tiktoorku waxa uu qorayaa faa'iidooyin fara badan faa'iidanka waxa kamid ah Abubakar mowqifka uu ka qaatay inuu Jaysh Usama diro wuxuu ahaa mowqif ay muslimiintu markii dambe u ayday insha Allah taala buugaad ku noqon doonta cutubka ugu dambeeya wuxuu ka warramayaa qaabkii khilaafada Umar loogu wareejiyay iyo furitaanadiisii isna buugaad insha Allah taala ku noqon doonta maadaama waqtigu ugu yar yahay isna cutub aad iyo aad muhiim ah labada cutub
uu kaga warramay qaabkii khilaafada ku noqday Abubakar iyo qaabkii Cumar ku noqday waa laba usluub iyo laba hab oo muslimiintu ay ku dooran karayaan hogaamiyahooda iyadana insha Allah taala waad ku noqon doontaa wax badan baad ka faa'iidi doontaa intaasaan jecelahay markaa inaan kusoo gabagabeeyo buuggii waxaan u malaynayaa 1% ama 2% baan ka taabtayba waan idinla wadaagay waad garanaysaa markaa dee qofka laga warramayo iyo mansiladiisa iyo booskiisa waxba hadalka yaan dheerayn buugga ha la akhriyo insha Allah taala inta buugga xiga ku kulmi doono waxaan idin leeyahay aynu wada soconno adaalu cala alkhayri ka faacilihi muuqaalka iyo nowdkana intii aad gaarsiin kartid gaarsii si aad insha Allah taala maalinta aakhiro ajir iyo abaal aad uga heshid Ilaahay subxaanahu wa taala agtiisa maadaama waxaynu faafinaynaa aynu gudbaynaa Ilaahay dartiisa subxaanahu wa taala inaga tahay inaynu Ilaahay ugu dhawaano oo ummadda aynu intii aynu faa'iido gaarsiin kareen aynu gaarsiino. Assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.